caawa barnaamijkeena dehaya waa qaabka loo sameeyo Facebook. Haddaba ma awoodaa inaad sameyso Facebook? Haddii si aanad awoodin, waa halka ay su-aashu taalle. Waxaad u sameyn doontaa qaabkan fudud adigoo raaci doona tilmaamaha aan bixin doono. Ugu horeyn, Facebook baad calaamada Facebook oo wada naqaano waad ku dhufanaysaa halkaa email or phone ay ku qorantay. Haddii aad number ku sameynaysana waad gelinaysaa, haddii aad email ku haysatana kaba si wanaagsan. Hadda email aan hadda sameeyay waan tusaale bixinayaa. Wakaa passwordkana waan gelinayaa in yar la dulqaato. Passwordka marka aan geliyo login baan siin doonaa, balse passwordka xoogaa ayaan yara qarinayaa, dulqaad la yeesho. Okay, passwordka saa markaad u geliso login baad leedahay, waa haddii macnaha aad Facebook leedahay uu ku ogolaanayaa markaa. Laakiin haddii aanad Facebook lahayn, waxay noqonaysaa tallaabadan inaad raacdo ood xaggana soo dhaqaaqdo. Marka waxaad leedahay create new Facebook, next baan leenahay. Halkan magaca koowaad baan ku qoranaa, tusaale ahaan magacayga cid kale bayaan dhibine, halkanna Osman. Next baan leeyahay. Enter your mobile number buuri, horta halkan aynu iska bedelno wadankan joogo, for example Germany. Okay, mobile numberka ayuu yidhi ma rabno, markaa sigana email baan leenahay. Allahumma salli ala next. What's your date? Oh, sorry. Use different baan leenahay. No. Okay. Next baan leenahay. taariikhda aan dhalanay metel loo kale hadaad 20 dhalatay, hadaad waxaad dhalatay. Marka waxaynu ku qori doonaa taariikh aynu xasuusanahay ama aynu xasuusan doono. For example, kowdii iyo bisha ay badanaa Soomaalidu iska xafisantay May iyo 93 metel loo kale. Next. Haddii aad gabar tahay female baad leedahay oo tanaad calaamadinaysa, haddii aad tahay ninna male baad calaamadinaysaa. Marka next baan leenahay. halkan passwordka ayaan gelin doonaa, choose password. Remember this password kula xasuusno passwordkan. Marka hala ii dulqaato. Okay, passwordka markaan siiyay waxaan next saasay tahay finish sign up buuri. Marka sigan baan leenahay si guda galno Facebook-geeni create account buu hadda taagan yahay. Macnaha Facebook waa lagu qalaaday oo passwordkiisa soo saaray. Waxaad samaysaa step waxyaabihii ku xigay, sida sawir la saaro, sida magac loo sameysto, dhammaan wixii adiga profile-kaaga aad ka dhigan lahayd. Sign in we know guda gali doona insha Allah. karnaa waan ka xumahay sawir waqti xaadirkan ma hayo, waan iska diinayaa. Take photo, sawir iska qaado kale, choose from gallery. Okay, iska beelan sayn waqtiga u ilaalino. dhammaan asxaabtada macnaha friends ku darsi buu leeyahay. Friends and not now and add friend baad oran kartaa oo asxaabtada ku darsan kartaa, balse waan ka soconayaa maadaama aan waqti xaadirkan aan tusaale bixinayo. dhan baan leeyahay. haddana wuxuu leeyahay add friends oo iska baan leeyahay. confirmation code-kan wuxuu igu soo diray ciwaankayga. Okay, aan email-ka galo. Okay, waad arkaysaa dhammaantiin asxaabtayda qaariga Facebook-gii. waqti xaadirkan halkaa markaan ku dhufano waxaynu ka geli karnaa waad arkaysaa Cabdi Osman oo samaysmay. asxaabtayda qaariga waad u fiirsan kartaa. halkan Instagram-ka ku soo xiriirin kartaa. halkan oo kale friends-kaaga wixii kugu soo darsaday ayaad ka eegaysaa insha Allah. wixii aad ku darsan kartaan halkan waad kaga darsan kartaa. xaggana waa notification-ka waraaqo halka ku imanayaan badanaa commentiyadu. halkana public ayaad ka eegaysaa, asxaabta public waxay soo dhigan. halkaasina waxa weeye inkastoo aan hadda sii taabanayn maadaama ay tusaaleyaasha waxa weeye halka messenger-ka ka sii geli doonto insha Allah. aad baad mahadsantiin. halkana waa halka online-ka la geeyo. marka aad baad mahadsantiin asxaabta.